booliska qaranka ayaa maanta la xaqiijiyay in lagu dilay qarax miino ah oo la soo saaray gaari dameer ama kareeto isla markaasina lagu qarxiyay saraakiil booliska dalka ka tirsan. weerarka waxaa la xaqiijiyay in uu ka dhacay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaan ismaamulka Mandera, halkaas iyada ah oo ciidamada booliska ay markaasi ku sugnaayeen si baaritaano ay ugu sameeyaan waxyaabaha halkaasi ka gudbaya iyo ka soo galaya. miinada kareetada saarneed waxaa la sheegay in ay qaraxday kadib markii ciidamada booliska ay ku joojiyeen marinka laga soo gudbo ee xuduudda si baaritaan ay ugu sameeyaan. ciidamada booliska oo warbixin soo saaray waxa ay sheegeen in hal askari uu goobta ku dhintay, halka 2 askari oo kalena ay ku dhaawacmeen halkaasi, kuwaasoo loola cararay xarun caafimaad oo halkaasi ka dhow si loogu daweeyo. ciidamada ayaa sidoo kale sheegay in ay baaritaano ku hayaan dhacdadan iyo wixii sababay si ay u ogaadaan waxyaabaha sababayo dhacdooyinka caynkan ah ee ciidamada iyo shacabka lagu dhibaataynayo. booliska sidoo kale waxa ay sheegeen in si weyn loo adkeeyay amniga guud ee halkaasi iyo in la isla meel dhigay tallaabooyin wax ku ool ah oo weerarada caynkaas looga hortagayo. ma jirto ilaa iyo hadda cid ciidamada booliska ay xaqiijiyeen in dhacdadan iyada loo soo